saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maalintii labaad sii wada kormeer iskugu jira wacyigelin dardaaran iyo dhiirigelin maalintan saraakiishu waxay booqdeen ciidamada ku sugan degmada daarusalaam ee magaalada muqdisho halkaas oo ay kula dardaarmeen ilaalinta waajibaadka diimeed iyo midka qaran adkeenta sugidda amniga iyo adeegidda shacabka si xilkasnimo ku dheehan tahay intii lagu guda jiro kormeerka dhamme Bashiir Cabdi Macalin oo hogaaminaya wafdiga ayaa sheegay in guusha lagu gaari karo kaliya iyadoo la isku dubnaado lana ilaaliyo xeerarka iyo anshaxa ciidanimo waxa uu xusay in ciidamada looga baahan yahay inay ka fogaadaan waxyaabaha maanka dooriya si joogto ahna ugu dadaalaan cibaadada iyo dhowrista sharafta shacabka ay u adeegaan sidoo kale wuxuu yidhi ciidanku waa lafdhabarta amniga dalka haddii aad adkaysataan shacabka iyo dowladduba way ka rab taagan yihiin ilaahayna wuu barakeeyaa cid kasta oo daacad u ah ilaalinta amniga iyo difaaca dalka sidoo kale saraakiisha ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada inay si laba jibaaraan dadaalkooda si loo adkeeyo guulaha laga gaaray amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka عليه الصلاة والسلام wuxuu leeyahay man xamala علينا السلاح فليس منا qofkii hubnugu dul qaada naga mid maahan علينا السلاح ليقتلنا inuu nugu dilo ama liyo hadidana inuu nugu guulguuliyo naga mid ma ahan macshar muslimiin kuma jiro saaxiibka qorga ku aadinin qorga in xabad lagu qaado dembiga sidii kuma leedina tale kooxa iskale tale kooxa inuu idinka kontaroolo qofkii oo qorgiis xabad ku arkana oo maxkamad la koray say asaa laga rabaa tale kooxa waxa laga rabaa hadii cadow yimaado inuu amar bixiyo oo iraha lagu qaado hana la furo risaas yaabaha marka nalka raba anaga waxay tahay in aan kuwaas caadaystay in muslimiinta dhigooda baabi'iyaan nafsadda iyo nolosha qofka muwaadinka Soomaaliyeed inay gooyaan raba in anagu aan inta gacmaha ka qabanno dhahno kuwa ku la dilaya maan ku la dilay meelaha si jiraan wadaad annagana waxaan nalka rabaa in ummadda muslimka ah naga nabad gasho ummadda muslimka ah naga nabad gasho annagu aan kala nabad galno ciidanimadu ay qiimo yeelato waxa loo shaqeeyaa ay bulsho yihiin aysan mudnayn in xabad lagu rido oo aysan mudnayn in la dhaawaco aysan mudnayn in la aflagaadeeyo sideedani intaad ummadda u dhimridin oo u naxariista adinkan Ilaahay waa idin naxariisana aad iyo aad u baahantii guulaysta idin leeyahay waligiinba